السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ساكا oo bisha August ay tahay 22 halkan waxaynu isugu nimay inaynu kala diro kooxihii routiinka ama caadiga ah ee saddex bilood mar loo diri jiray caafimaadka xoolaha gobolada iyo degmooyinka iyo tuulooyinka meelaha xooluhu ku dhaqan yihiin inaynu saaka kala amba bixino asbaabtan aan halkan soo taagno waxayna dadweynaha inaan ogeysiino maadaama ay waqti xil abaareed ku jiro oo xoolaha xanuunadii caadiga ahaa ay marka cudurro dilaa ku noqonayaan sida shilinta iyo wixii la midka ahaa nafaqa darrana jirto in dadku ka faa'iideystaan daaweynta iyo kooxaha loo soo diray caafimaadka waqtigeeda waxay noqon doontaa 6 gobol oo waaweyn iyo 14 gobol in loo kala diro waxaan kooxaha ka hawlgelaya hawsha waa 30 kooxood dhakhaatiirta ka hawlgeli doontaa waa 253 kalkaaliyaasha caafimaadka xoolaha ee ka hawlgelaya waa 321 gaadiidka ka hawlgeli doonaa waa 43 gaari haddii alla yidhaa kooxaha qaybinaya dawooyinkuna waa 5 kooxaha wacyigelintu waa 4 kooxaha kormeerka iyo daaweyntu ilaa 6 bay noqon doonaan tirada xoolaha la rabo in la soo daaweeyo waxa weeye guud ahaan tirada adhiga la daaweynaya waa 1,125,000 tirada geela wuxuu noqon doonaa 56,000 tirada lo'da la rabo in la daweeyo 12,250 muddada ay hawshaas socon doonta caafimaadku waa 15 casho marka waxaan dadweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland u ogeysiinaynaa inay ka faa'iideystaan marka heegan bay dhakhaatiirta caafimaadka xooluhu u yihiin iyo wasaaraddu waqtigan cidhiidhiga ah in loo gurmado meeshii kolba wax ka jiraan dadweynuhuna si hawlo socdeen ayaguna xidhiidhka ha wanaajiyeen dawooyinka ha soo doonteen dhakhaatiirta ha soo doonteen ha ka warbixiyeen wixii ay arkaan dheeraada annaguna sidaasaanu heegan ugu nahay. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.